السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر روادا قضبضة وركي ودن بي دالك راشيا يوكرين دقال حوغان يكسعون ايو maalintii saddexaad waxaa dagaal xoogan uu ka soconaya xuduudda u dhaxaysa dalalka Ukraine iyo Russia halka oo la sheegay in boqolaal askari labada dhinac ay uga geeriyoodeen. madaxweynaha dalka la yiraahdo Ukraine ayaa sheegay in ay dagaalami doonaan shacabkiisana uu garab istaagi doono. madaxweynaha oo shir jiraayad ku qabtay caasimadda Kiev meel ka baxsan asagoo ku labisan dharka militariga ayaa waxa uu tilmaamay in gebi ahaanba uusan faarijin doonin magaaladiisa caasimadda iyo dadkiisa. waxa uu sheegay inta qof uu naga nool yahay waan dagaalami doonaa. waxaana sidoo kale uu aad uga cambaariyay dowladaha reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyay inay yihiin kuwa munaafiqiin ah oo aysan dagaalka waxba ka caawinin. dhanka kale madaxda NATO ayaa ku sii qulqulayso Brussels caasimadda dalka Belgium-ka oo ah xarunta midowga Yurub halkaas oo ay kaga arrinsanayaan dagaalka xooggan ee Ruushka uu ka wado bariga Yurub gaar ahaan dalka Ukraine halkaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay dagaal daandaasi ah una soo gudbi karo Yurubta inteeda kale. dhammaan dalalka Yurub ayaa laga dareemayaa cabsi xoogan gaar ahaan dalalka ugu awoodda badan sida Jarmalka, Britain, Faransiiska, Sweden iyo wadamo kale oo Yurub ah oo NATO ku jiro ayaa tilmaamay inay tahay mid aan loo dulqaadan karin. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa asagana dhankiisa shir jiraayad oo ku qabtay aqalka cad waxa uu tilmaamay in Putin waxa uu wada ay tahay wax gardarro cad ah isla markaana ay tahay dagaal aan geed lagu soo gabanin. ciidamo fara badan oo labada dhinac ah oo Ruushka iyo Ukraine ah ayaa la sheegay in isku hor fadhiyaan meel sida aan uga fogeyn caasimadda Kiev ee dalka Ukraine waxaana aad looga cabsi qabaa in ciidamada ay la wareegaan Ruushka ayaa la yiri magaalada Kiev ee caasimadda ah dalka Ukraine. in ka badan 100,000 oo qof ayaa qaxday oo dalka Ukraine ka qaxday kuwaas oo intooda badan rayid ah. dalalka Yurub qayb ka mid oo dalka Poland uu ka mid yahay ayaa la yiri xuduudooda waa ay dhooban yihiin dadkaasi ayagoo ay tilmaameen dowladaha reer Yurubna oo Jarmalka ugu horeeyana in albaabada ay u fureen oo ay soo dhaweynayaan. dagaalkan haddii uu sii socdo wuxuu saameyn karaa dhammaan qaaradda Yurub iyo caalamka oo dhan waayo Jarmalka waa dad xoog badan dowlad aad u xoog badan weeye inta badan doonaysana in ay awood ku maquuliso dalalka yaryarka ee dariska la ah. dowladda Mareykanka ayaa waxa uu ku tilmaamay arrintani inay tahay daandaasi cad oo wala joodo in dowlado kale uu ku roorsanayo dalka Russia. ninka qaramada midoobay madaxda ka ah ee Antonio Guterres ayaa waxa uu asagoo ku hadlaya afka bini'aadanimada waxa uu Putin ugu baaqay in uu ciidamadiisa dib uga laabto Ukraine bini'aadanimada uu ilaaliyo. waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid aan loo dulqaadan karin hooyooyinka caruurta dhimanaya dadka gaajada iyo koronto la'aanta